waxaynu joognaa waqti qalad loo fahmay isticmaalka moobilka. waqti ceebtii qof walba ka guban jiray ay noqoto mid caanimo laga raadiyo. waqti xataa qofku suuliga marka uu galayo hore ka sii qaadanaya moobilkiisa si uu duubitaan ugu sameeyo waxyaabihii qofka khusuusiga u ahaa. haddaba qisadani waxay ku socotaa gabadhan la yidhaahdo Nasriin. waa mid ku caan baxday inay ku faafiso baraha bulshada muuqaaladeeda aan asturnayn. meel kasta iyo goob walba haddii ay joogto waxay iska duubtaa muuqaal. haddaba cagtii joogsan weydaa marbay ceeb la kulantahay waxa maalmaha ka mid ah soo galay taleefankii sababay dhimashada karaamadeeda. gabadhan furiyo ka ayaan faafinaya dacaawo jimci ka faa'iideeyo garaaco soo bax ku dhay hello يورن أنا ستة عوا جمع ما صباحين ما والله وانك حمها مصبح كالقناعة وحافظ ما يقول أول لو تشو ذا يقول واي فريو عم فافين يعني دقيقة يقول واي بس dacaawo مريان صح نبل الفيديو كده ولا صور جاي ما في صدق ما هي برمتن قراعة يقولون هي القراع ده قبل قاون حاجنا ما يسوي قبل كوايبه هلو ما في عنتاي خير ايه روح نقول باليوم اكح من هبلا صار له كوري فيديو كده بلي صادر الحكومة فريق يقلها اي أركنا ما صدر أيه بالبعض هذو بالبعض نكو قراده كقراي قبل قاون ما في نهرته حنقرنا إني واحد بعضنا قبل قاون واتن محمد خير حقاون قبل قاون بسم الله الرحمن الرحيم أروح حقاون بارك ما قال عنيو مش كده وضوء كتاونا بسم الله سبحان الله روح يتلك يا ninkaynan magayda ah gol qaniinku maale guraac kaga danaysto waxaad gaxsanaysiyo gashigaad cunaysiyo xumaad gelaysa ruuxay ka go'an tahay gabadhaada weeyo gefkaad falaysiyo waxaad geysanaysaa galab kale ka sheekayn green saxaad aan wallahi bila break baan ku soo baxay waxaan ku ri saan u socdo diga warwartiisa والله صاحب waxa ku wada ninka oo sheegsan jiray wuxuu sameeyay صاحب wuxuu sameeyay furiyo oo dirmaan doonto furiyo maxaa ka wada furiyo maxay aniga aan leeyahay u diray hada waxa sidoo furiyo oo dirtir furiyo sidee bisan صاحب saas maaha furiyo aan bilaadar ah baan u diray faantiin maxaa ku qaatay sister ma wala tani Soomaali bad furiyo u diray saqaw kallu صاحب way dhaaway imka way dhacday markaa wuxuu sameeyay uu soo dhigay imka dadkii igu jiray oo dhan ii soo direen mobilkayga waan iska baxtiyay waxay soo qaraacay dadka xataa saxaabtay dibadda joogo wixii dadkii soo qaraacay saaxiib hada saaxiibadaha wada dhimanay kulliba ma noolini in xalna raadino maxaa hayay kuma noqon maxaa ku qaatay والله way dhacday صاحب anigaygan baan midsan ku diray way dhacday beeleeday soo dhacday hada waxa jira in loo yaro Cabdi Nasiir la dhaho كل قرط كنا قاعد نصار مركز تبغى قبضة في فيديو قدر تعادر تاي أظن بقرط كله بصاري هذا نبغى حرجينا إنه حقا نكون صار دقيق بل إما كفردينه ما يلا إنك عامل تمام كلا horta aan idin baro abukaati Cabdi Nasiir waa ninku caan baxay afkiisa lagana wada yaqaan maxkamadaha mana jira ilaa iyo hadda kiis kaliya oo ku khasaaray kiiska STH Huxley in 1905 EINS waxaan gibiis warraf min maxkamadda ka diin xarfaanaya hayta qortay kiiskan waa kiis dila oo lagu soo eedeeyay Cabdi Xuseen oo dilay sadohdii waxaana soo eedeeyay dhibane Cabdi Rabbi waxaaskiisii laga dilay dhageysiga dacwadu wiinoo furan yahay mudana waxa gaag kiiska waxaan ku bilaabayaa mudana waxaan doonayaa ogolaato eedaysanahayga inaan su'aalo weydiiyo fasax baad haystaa inaan su'aalo weydiiso ma dhaba Cabdi Xuseenow inaad adigu dishay sadoxda أنا ما أدري صدقني لكن ما حي استفاع نفسه يعني inaad iska difaacday sadoxda نفتي انتفاعي sidee ku dhacday markaan ma nooga sheekin kartaa sidee ku dhacday dilkani waxaa warrami karaa marka waxay gurha beenima waxay u soo dirtay in xaaskayga igu soo dirtay sadoxday waayahay iyo tan anagu istagaalana ayaduna ii soo raacday
dabeetana iyaalay bud meel iyaalay ayaan ku dhufto saas marka intaad budka ku dhufan saddexda markay soo caraysay maxay hor sidatay waxay siitay midi soo qaaday markaadna wad iskaga caabisay anaa hadii nafsi intifaaci ay dhantay qaywaam mudane qaadi mudane garsoore saad maqlayso waxay ahayd istifaacid bay ahayd self defense الدفاع عن النفس مدن أني كني مود دلين صدقه دي نفتي سويس كدفاعي مدن على بس دي يجسوا شيء ربطة مرخاتياتنا أنا كوه إنه نيجي صدقه دي ويدي بتشتري مركور اللي بقولي كذا دكانين يسوي قولي حاسس كيس كوه قبي صدقه دي نقولي كذا دكانين عبد ربنا وشوجا ويسقى صدقه ويان قولي عبد ربي بيشوكتي مرة البحث كيس يكدري شرتي إن بدن بني كان السمري طلقاتي كبعد مدن way soo wareegtay gantaaladii sodobada way soo dhaweysatay gurigiisa timid degtay soo sax ma aha gurigiisa soo degtay dabadna ku diridii way ka sii farabaltayntii xaaskiisa shaxda uu kaga tago uu sheegay arinka isla ogaadaan iyo shaxdu dhiga 433 ga habeenkii wuxuu soo noqon jiray bedesho 422 baad uu ku soo gal difaac ku soo gashay oo arinkii sidii hore isku ogaayeen aan ahayn maalin maalmaha kamida ayaa Cabdi Xuseen oo shaqo ku maqan maxaa ka shaqay Cabdi Xuseen أدرك وقت بعد هبيني مال. ويسك حماشة. يسوي سو حماشة أو صار دبات هذي أو صار هولاضي أو جورج يميد أي كتير تيجي هذي حاسكيس. حاسكيس مركب وايد ترتارني. سيدا دلبك وقصة قال قيلة قبضة يسوي الدري له هي والصعدة أو صو شقي بيلكي والسيدا ولا وسعيدة. تنمو ضانه. حاسكيس مركب الدق بيكتري كلام كي قبضة إنه لا تقال أنتي دونت. عبد الحسين نوم مسكين حق أنا ما تقاطع. ما هي مو قادم وين نقل سامو ضانه. دابا ويسك قبطي انت ويسك هاي ويسك عابينيس تودنا والكي دونيس markii waxa istiriintaada waa ka dilay kuma marsow soor bay iska soo jartay meeshana waa bur ilaa habarta dimta indhahala ayaa sideeto soorka soo saartay sax deedna sodohdii markii mididii kula soo carartay dhanna waxa iska hayo iska caabinayo ayaa wuxuu isri midida iska qabo horta dabeedna budku agtiirsana albaabka ku xiri jirtay albaabka guriga ku xiri jirtay dabeedna meesha wada tug dabeedna wuxuu soo qaatay budkii sodohdii iska waabiyay wuu ku dhacay budkii بعدين وين دمت هذه لهي بنا لورد انت وانا عطين كرا بدكينا ان وحبه دلين دمشده هذه لهي لورد انت بس تا مدوني انا ku habsamo waxaan sheegayaa ninkan wakiilka u ahay inuu istifaacay oo ay ka hay difaac aan nafs ka kaalay mudan sidina xogta ku hayno burco shalay waxa lagu dilay nin oo ay gabadhiisu dishay buu hoodle daraad nin bay ku gubtay gabadhiisu laascaanood sidoo kale waxa ay gabadhi ku dishay ninkeediisa wararka ugu dambeeyay sheegeen mudan rarka way tabar ku haya boqolkiiba 7 magaalada aynu ku noolahay ama wadanka aynu ku noolahay waa dumar boqolkiiba 7 waa rag inta xuduudda fadhida inta ilaashada ku xiran inta tahriibaysa inta gidaarada xabagta ku cabasa 10% baa ka baxaya only 20% rag weeyaan mudana dumarkana sinaba loo ma fahmi karo wari Cabdi Nasiir cadee sida aan loo fahmi karin dumarka aad bay u dhib yar tahay la fahmaa waan cadeynaya mudana sida loo fahmi karo inaan la fahmi karin waan ku cadeynaya waana ku sheegaya mudana ka soo qaad iminka ka soo qaad xaaskaaga ayaa ku timid adiga waxa ku tiri waxaan doonayaa inaan aabahay iyo reerkayga u yar wareego dhowr cishaan waqti la soo yar qaataan la joogo hadda isla markaaba ku tiraado hay fasax baa tahay la soo jooga aabahay isla markaaba waxay u qaadanaysaa inaad ka raysanayso oo la joogeedu uu dib kugu yahay haddii aad maya tiraado oo aad markaa ku tiraado maya ha tagina waxay u qaadanaysaa inaad xorriyadii ka xidho xorriyadii buuga xidhay wuu dhibaateey haddii aad ka aamustana isla markaa waxay u qaadanaysaa arrintaada dan kama gelayo keer ma siinayo waxaad u sheegtaba uu ka aamusaya way mudan sidee loogu jawaabi karaa sidee loo fahmi karaa gabadha psychology waxay leeyihiin don't try to understand women understand women that is why they hate each other for in that case sir ninkagana wakiilka u ahay wax dambiya mala mudane naftiisa inuu difaacay way ga dhantay doodii mudane kiisku wuu cad yahay eedaysana Cabdi Xuseen way ku cadahay inuu dilku sida doonaba ha u dhacdo ama self defense ha haato ama dil caadi ugu talagalay ha haato waxaanu weydiinaynaa waxa uu ka qabo iyo waxa ay la tahay iyo sida uu doonayo Cabdi Rabbi oo dhibana ah Cabdi Rabbi waxaan doonayaa ninka oridayda dilay kow leedilo wax kala kuma qancaya maanta Jackson my lord waan ka soo jeedaa arrinka Cabdi Rabbi mudane arrinka Cabdi Rabbi waan ka soo jeedaa waxaan cadeynayaa Cabdi Rabbi mag inaanu doonin lana xukumi karin ninka wakiilka u ahay سؤالان دوني هادين وجني كانوا كيلك وهاي وري عبد الحسين إمسك شير بديل كرسي سطحها بقول شير بديل كرسي بقول شانس ما كان يدو هردا حتى جرتين مركز دنديل يدو هردا هذا شيء لا يدو ميرسل سيد شتم هير كرسي بقول شير تون كم يكون فين كرسي مسكتيس يدو أرس سكرسي كنت كنيسة كور بقول شير بديل كرسي هذا لكن مركز واحد هايد إلى نفس الدفاع صح ما مضنا واحد كوا حطينا يا عبد ربي وقلتين مضنا واحد كوا شيء يا كيسس وعبد ربي ليه أو قلي
ka galay laftiisa marxuumada sadoxda ee gacanta ay kaga dhacday difaacan nafsi Cabdi Xuseen mudane waxa jirtay waxaan cadaynayaa Cabdi Rabbi laftiisu inuu isku dayay marxuumadii dhimatay xaaskiisa ahayd isaga laftiisa inuu gacantiisa ku dilo mudane waxa jirtay muddo hore jaar baan nahay Cabdi Rabbi waxa dhacday in xaaskaygu dhimato oo ay aan anigu lahaa uu qaniino aan intu samudane kartaa Cabdi Rabbi nagaari Cabdi Rabbi waxa xusuus wicirkiinu dawaynu eegina xusuus ila dambiga aad lagu baaraya ina mari xusuusta ina mari mudan qaad ina mari حياتك الباقي يا شيخ وحياتك الباقي يا شيخ سمريا وحياتك الباقية وحياتك الباقية يا شيخ حمد رادس كيسر وتحسيد قبل هذا الشوي ونيون أوي كريوه ما له عندها يقرأ أو كير قرني مراسل له أوي أو سل له أوي حتى إنه حكوا سلام يعني قبل هذا مو معارف بنا معارف تاك على شفت وراح لأي يعني يبسني أنا يجون يدمر كوتا الدبايو والله نمر أي جني يبيننا ويا أي جني عادية معها مدن يالو حديث شيء جاي عادي معها مرة عليهم كجوريا جساو كيسو كيني يبسدين هاي على فوق يالو قبل نور الثانية مدخل كوه رينيا حمام كوه باريا سربيد كوسي سوية هالكاول كوه قرينيا وري جني يبسده أي قيمة صح نكبل عبينا $5 $5 $6 ويا عبد حسين $6 عبد حسين $6 صدق يا $6 حاج عبد ربي $6 استحسن دور حاج عبد ربي $6 استحسن دور سنتني كاد بودي 7 سنوات بيلا joogtaa waan malanaya حاج عبد ربي $6 واي $6 يا guulad $650 salaadi ma taagnay gabar ku tagtaynaa qiimihiisa way ku tagtaynaa $650 guulad $750 بافو $750 نيكا مارك سو ناكت رياس اسكت الباشا نيو $750 بافو $750 $1,000 انا لو كلا غوري waayahay khadar dheere $1,000 waliba ninka khadar dheere wuxuu qabaa gabadh yar oo gaaban oo cawrar oo saa ku cunaysan war baasha iska dil $1,000 iyo $3 عبد الربي كدر عبد ربي $3 odaga san tuudhi 7 sano qaba $3 عبد ربي waxa waxa $3 raaceen الله هذا وريان استاذ يحلم هذه صغار كل دبيسه والله $3 عبد حسين $300 war bahalada iska habeenkii tad casho u qaadaan bahalada isku naaxiya hadhowna wayna dishay gurigay naga eerida in la guursaday diiday war bahalada waa aygan iskaga kaxeeya war hooy $500 يكون ايش ما كذا انت العب عبدو يا ما لا والله ده وهياني يقول لك معناتها هنا guuleed $500 kun war heedha aygan ay caadiya ma war bahalada iska bahasha iska dila oo bahalada iska dila war waa $500 guuleed cid wali ku siyaadisay ma hayo war Cabdi Xuseenow khadar dheero war wax ku dara يبسي بملاهيكي waayahay 3 jeer baan oranayaa aygu saas uu ku iibsamay hadii waxba lagu dari waayo $500 laba $500 $500 حاج عبد ربي $500 حاج عبد ربي $500 يا سيادسدي كو $500 عبد ربي $500 حاج عبد ربي $500 ايغو سيدا waxa ku qaatay حاج عبد ربي يا يتيو كان iga daba keenay sida ugu mudane Cabdi Rabbi waa dambiile waxaan ku qaadi karnaa isku daydil oo xaaskiisa kula kacay way wiibi aan ka mudane wiila qaba Cabdi Rabbi wiila qaba dambiga dilida hadii uu dambiile noqdo Cabdi Xuseen oo uu xukun ku dhaco waxaynu ku qaadinaa isku daydil Cabdi Rabbi hatta waxa isku lagu qaadaya kiiska marxumadiisii hore dhimatay islaantiisii saddexda oo midii u qaadatay Cabdi Xuseen si ay u disho iyada lafteeda kiiskeeda isku daydil uu noqonaya mudane dambigeedana waxa qaadaya Cabdi Rabbi mudane xukunkaadaan ku daay waynu dhageysanay dacwadda oo dhameystiran haddaba inuu magta qaato iyo in loo dilo waxa go'aanka iska leh oo isaga laftiisu aadi meesha u taalo oo xagga dambe laga eegi doono kolba go'aanka uu qaato Cabdi Rabbi sidee kula tahay
عبان مدن عفي عبد حسين قبلنا عاد إلهي بود متم بين وراني ما يدي تونا كم دون كل دود دليل ساس يعني قدنت مدن عادي أجود ما تنتهين يدك محكمة شوقية عبد ربي وسوي لك سنة ولا قاطي عبد حسين عاد بنقوم هالنقيا الدفاع عن النفس بيه هيد إن شاء الله مدن عادنا عادي عاد بنقوم هالنقيا ساس كيسكين وقولين dhanka kale isna waxaa jira abukaate kale oo ay cabdinasiir badanka xifaaltamaan isla magaalana ay ku nool yihiin magaciisana la yidhaahdo 5 daqiiqo magacan oo ku raacay sida dhaqsaha leh ee uu soo gabagabeeyay kiisaskiisa we face the discrimination of the wala keenay maxuuskii biloween eedaysani wala keenay kana war heede adeer adiga mar horena waa la ii ka keenay adeer maxkamadda mar horena waan ku arkay imkana waa markii labaad adeer miyaanad ka xishoonayd ka khajilay mar labaad wajigaaga inay tustood maxkamadda igu timaado mudan aniga laba cisho kaliya aragtad maslee mudan maalin walba adiga halkan fadhiya war baasar baa tagay salaam saacadood mar dambe xafidinaad kala tuuynimade nadar wallahi kufsa lagu qaadi xeer boqoliyo 5 qodobkii carruurta 150 mid baa ku qaadi iska jiraan kiiskaagu wuxuu noqonayaa waryaa eedaysane tuugnima lagu soo qabtay adigoo waxadaya dacwadiina dhageysanana inoo furanta bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn waan salaamay dhammaantiin haddaynu gudagalno kiiska eedeysanahan wakiilka kaya cabdiqani oo ku eedeysan inuu yahay tuug wax soo xaday isaan kiiska u caddeeyo isaga ayaan su-aal weydiin doonaa adigu markaad waxadaysay micid baa ku arkaysay cidi kuma arkayn soo maa mudane hadalku kiisku iska cad yahay ninkan cidimay arkayn adigu ma arkays may waaye maxaa kalifay inaad soo istaagto soo kalifto ninka horta marka koobaad kiiskaas u cadaan waayo xaalmarintiisa idinka ka raba warcad tooma midda kale ma umur baad haysan waxa u geeyay qofkan ma dhibaato u geysay ma duruuf u geysay miina tahay idinku su'aal la weydiinay maalin walba 188.8 baa u dhinta gaajiyo cudur midda kale caruuriin iyo caruuraan kale isku mid maaha caruuriin kale waa kayd baa u yaala ilaa 5 sano 6 sano dambe cunaya teeda kale talaagadu ma kala qalaleyso waa la soo adeegaya gaar lagu soo qaday waa la dhigayaa hooyo kacba lagu qasbay ma mar ugu kana waraatanaya waa arkaya maxaa markaa ay tahay cadaaladda taalo wadanka idinku xalaal iyo xaraam ku qarsi midig iyo bidix ma kala garanaysaan taa doodan ba ku qaadaysa ugu dambi waxaan ku soo gabagabeynaya kiiska miyaad arkaysaa adigu mudan ilaahay waa ku arkaya adigana miyaad arkaysaa halkaas kursigaas fadhidaa miyaad arkaysaa markuu xalay waa may soo ma de soo may ma hadda aniga saayig ha horiya namar yorga حين سمينده راسو كيسو كدين السلام عليكم عليكم السلام اسكور المدن الله aad baan fiican عبد النصير والله ka soo tilmaamay wala waxa u socday arin wala sikrado maxay heeday aan wanaagsanay waxa ogeynaa lawyer tahay aniguna wala waxa u socday arin aad igu xanuun badan inaan saaxiibnahay waxa jirta inaan ay wada sheekaysaneen muddo oo maxay tahay isaamineen kalsooni badan siisay ay wuxuu ka faa'iideystay kalsoonideedii wuxuu sameeyay video uu ka faafiyaan wanaagsaneen marka wuxuu video adigu qaawan oo maxay heeday aan bulshada la hormaan iyadoo duubtay marka ma madaqay taagnin mise inaga dhaaf adigu kulay lawyer wad arki doonto ma agu kiiska marka la galay wuxuu u baahan yahay tafaasiil dhan kastay taagan tahay iyo xagay u jeeday iyo qaabkii u taagan tahay laftiisu macnuu sameeynaya waan ogahay laakiin adigu qof in baad inaad fahantaa fiican hadalkayga dhul ويل حمام كهاد وانا محاهدي دفيريو ادغو قاون مكان كودا وفهميسا dad wuxuu gaan jabin firiyo gide soo faafin doona intii marka firiyo ka faafi xaafadoodii kuma noqon karto sharafteedu ma wanaagsan cadawga ku wiirsanay marka waxaan jeclaa inaad maxay heeday kiiska gasho oo sida ugu wanaagsan aad wax noola qabatay maxay sameyn kartaa xal loo yarto baladi su'aal ku weydiiyay horta berigii hore geedaha iyo waxba xal lagu kala qaadan jiray inanta marka la soo xumeeyo hadda waqti xaadirkan ma jirto فيديو كله ضوء فافو دتك جاري ده وحالون أنا أركيا هوا يراتي مش فيديو ما ديسا فيديو كون هاي لكن مركب واحد نسمينا إن أرتو واحد كنا نسمينا ما جرتو إن نكيس عسول محكمة ده قبل ونو كيوجو هرية محكمة ده كدعاء أجاني سكوت ديسا إن أنت وعاونا فيديو كان ودي صدري وكانوا تبكو كيس كوكل إنه مقترح ده مربوط لقيه جاية marka waxaad ku tiraahdaa saaxiibada berito dabada hadii alla ka qadaro maxkamadda hayno waxa insha Allah xarjina guul adiguna waxaan ka filanaa inaan nacaawin insha Allah aad baa mahad fi amaan illah hadi baraka
sida aynu ognahay magaaladeenna waxaa ku soo fara badanaya rag fara badan oo caado ka dhigtay fiidiyoyo foolxuma oo anshax xuma inay ka duubaan hablaha kadibna ay kaga faa'iidaystaan haddaba kiiskan oo kale ah ama noociisan oo kale ah ayaa waxaa ka bilaabmay saaka salaadii hore maxkamadda sare ee dalka dowladda garsoore saaka waxaa la keenay kiis fiideo qaawanaana markaa xeerna kama yaalo markaa waa qaawanaan kiiskani mudhax mudane fiidiyoga waan daawaday waa gabadh muri adnariira oo sida ku dhalatay oo ka sii jeesanaysa ka soo jeesanaysa la xawla wala quwwata illa billah aan dhageysano dacwadda labada dhinac mudane qaadi si fiican baad garanaysaa magacaygu cabdinasiir boqolkiisa horena waan difaacay maxkamadda horteeda si kasta waan soo ciyaarnay dad fara badan oo dembi qabana waan soo difaacnay balse dembigiina wada maanta uu ka duwan yahay kiiskana wada kiisaskii maxkamadda hore loogu qaaday oo dhan mudane qaadi maanta laba xaalo keliya inoo bannaan adigu nin baa tahay weli lama arag qaadi gabadha in dhammaan rag oo dhan ceeboobaan oo ninka dembiilaha dembigiisa ku raacdo iyana gabadha inantaadoo kale oo muslimiinta ee xumaanta lagu sameeyey intaanan sheegin farku siduu yahay inaad caawiso waxaan kaa rabaa xeer hore u dhacay inaad dib u soo nooleysiisay maanta mudane qofka biniaadamkii wuu xumaan karaa qaladna haddii la isku nacayo ummadoo dhan baa isnaci lahay qof kastoo biniaadan uu qaldamaya mudane gabadhadan wakiilka u ahay nin ay isjeclaayeen bay aamintay ninna waa taqaanaa mudane nin baa tahay kaaga sheekay maya nin wuxuu yahay nin waa waraabe waxau ka dalbaday video aanay asturnayn inuu ay u dirto video waan daawaday laakiin aad maan si dhamaysan waan awoodi kari waayay mudane videogii markay u dirtay ay ku aamintay isaga waxau ka dalbaday inuu ka faa'iidaysto u yahay fulaada ii kaalay haddii kale videogaa faafinaya mudane markay diiday ay ku tiri videogeedana ha iga faafin diidmadu waa diidmu maya waa maya maya ogolo in videogeeda la faafiyo bacdeen markay diiday inuu ka faa'iidaysto videogeedii wuu faafiyey ummadii oo dhan buu u geeyey mudane sharafteedii baa dhimatay qofka biniaadamkana u noolaan karaa hadduu xanuunsanayo hadduu warwarsan yahay hadduu gaajoonayo dhan walba balse sharaftiisu hadday dhimato ma noolaan karo mudane maanta kiiskayga waa kiis gudaha ka meyda midda labaad rag iyo dumarka marka la eego ilaahay labadaba wuu sameeyey qofka qof dila waa loo dilayaa midda jirtaa midana waxa weeyaan ninku markuu gabadh kubsado wax yar haddii la xidho ama la iska soo daayo waa nin sharaf leh waa nin karaamo leh lagama daba idhaahdo laguma caayo uu guursadaa saddex laba tuu dooru guursadaa laakiin gabadha la kubsaday marnaba iyadoon dembi lahayn oo la xoogay qofka haddana sharafta xun ku dhacdo cayda ku dhacdo dhibtoo dhan u tallaabo gabadha mudana maanta inantaada iyadoo taasoo kale ka dhacayo maad adkaysan karteen mudane waxaan kaa codsanayaa xeerkii hore ahaa geedaha hoostooda odayaashu inay gabadha la xumeeyo ama eri xun lagu dhaado xaalkeedii uga qaadi jireen magteedii uga qaadi jireen inaad maanta maxkamadda dib ugu soo celiso oo aad inantaa xaqeeda usoo dhiciso si aanu qof dambe ama nin dambe aanu ugu dhicin karin caynkaasoo kale ah doodayda waa iga intaan weyna mudane shaki kama taagna ninkani fiidiyowga inuu faafiyey oo uu keenay baraha bulshada laakiin kaliya waxaa isweydiin mudan fiidiyowga markuu duubayay ay duubaysay miyuu qasbo muxuurtu ku qabto muxuurtu ku haysaadu ilaahay baa kugo mudan ilaahay baa kugo midda kana gabadhan waa gabadh caana oo dunida oo dhan laga yaqaano ceebteed maaha waa caadadeed dumarkii Soomaaliya dhan baa ku imtixaaman oo gabadh intay ugu qurux badan tahay bay tustaa qaar ku kana tusay qaar wali ma baano baa caadi soo galnaa annagoo wala baan ka baxnaa midda kale waxa weeye mudan maalintii gabadhan afar muuqaal bay duubtaa saddex kamid ah lagu soo mishin karay waana muuqaalkii waana yar daawana waa ku tusi toona mudan iyadoo qaawano kaliya tuushka taagado muddo gacan muxuurta lagu hayay video waan ku diri doonaa mudan qodob kale aan ku daray waxa weeye mudan inay ka waantoodo Soomaa anigu xoolo ninka laga faa'iideysto duruus buu keen oo adaan umika faafin lahayn dumar hore bas wada qaawin leh oo loo soo diri lahaa laakiin uu malan ma yana adigu xukumaysan midda kale waxaan qodob kale aan ku daray waxa weeye maxkamadda kiis noocan kale hore uga mudeen xeer qaawinaanta ka hadlayna ma jiro qofkiis qaawiyiskiisu qaabiyaan la qasbin anu qasam ma sheegin qofkiisu qaawiya midda kale imisa kuna qof maalintiis qaawiya qaar iskoodu meeranaya qaad ka faa'iideysan inta meeranaya aanu diray dad ba jira mudan gabadhan midda kale dadka kale waxa dheerta shawgii kinta ay joogtay 2019 maalintii dib aan jeedaan bishii sagaa bay joogtay
كين تعب شيخ نقطة دي رحنا يدو حول لبست صورت وان كنت ستونا بيننا مرخاتي يوسف يا بالي صورت وان كنت ستونا وكوصل مش كرو دلبيس كم حكيت انا قرن يا مدن وحويه تبت عيارتي قول لبست عيارتي حتى هم لبست قرن فين يترى عن قلبك لبست مدن واحد اسمه مع عدالة بقى قضب كوكو دميها كبح يا محكمة وحوي ما دام هوني كان عنو قصبين أنا حوجين حورتكو قبان هيرك جرين قبر داسي يدو إسكيدو صدرتي إن كيس كبر ثلقوا بابي مدن ونين كان عنو وكيل كهاي وبرتها كبح من نقوم ويدي محكمة واحد نقول نسا مين اللي ودليه هاي قف كده أنا وكاشتونه أنا كادوين ناس المدن قضب كوكو دميها كبح يا وحوية أنا محكمة صرفت لو waxaan ka codsanaya waan ku soo gabagabeynaya waxaan ka rajeenaya waliba inaan fasixi doonto oo cadaaladna marin doonto aniga ninkan wakiilka u hay aan la fasixi doono insha Allah aad baan idin salaamay waayahay kiiska markaan eegnay labada dhinacba uu nagu dheeraaday fahankiisa iyo go'aan qaadashadiisana ku degdegi mayno insha Allah berri toole ayuu xukunkii ugu dambeeyay dhacaya laguna kala dhamaanaya kiisku maanta halkaas inuu ugu xiran yahay wajiga labaad berri toole hayno hada insha Allah مدن الله يا نعم حاجة دوا ساعتها مدن الله إن أنت هذا كلاني ولا شيء كلاني وانكو بريا كيس كان نينك حالي حريم محاي هذي أدو كتناسل محانا باتر كتناسل محانا باتر إن أنت هذا كلاني لا والله اسمه قوياني أنت تصدق تود كل هذا ما ورت درك من تروح بيت بوقت مدن وحاس قلت كي جاويد عن كان ما أنت هدد كسي دي سمح كبدا أو لا حلو أيوه بريت ولا سو واحد كبدا ما صفار فيكم أنا رجعين هذا ما قفت براهين ها محل حريم مركا نوع بكون شيء اسمه قويسنا هذا على سيمك محن كعوية مدن نينكني فهن waxaan way dhaceen waa qaladkayga hadii dhaceen ninkan halay xukumay iska daado aduu yani aan ku guuleystay maxay hadii ninkan halay xidho wixii uu faafiyay war adduunyada waxa naga haysta waa qof intuu isqaawiyo qaladkay ku aan guuleystay wali la guulkuma tuale waa bad isqaawisay waxa ma ku sheegay maxaa diga rabtaa ii joojin karaba mudan kiiskan inaan ku guuleystay ma guuleysid baa ku halka yare haa hayla kaga yare baa ku madax iga gelin ismad qaawisan sawir calayse marta ma aniga ii joojin ragga kale iyaguna idin hayno ayaa waxa kamida kiiskii aan hore idin ku soo sheegnay ee fiidiyowga qaawan ee gabadha laga duubay wajigiisii labaad inuu maanta toos uga bilaamay maxkamadda sare ee dalka looyarka inamada difaacaya waxaad tiraahdaa maanta ma ku waarsan tahay wax doodo labaad anigu ma hayo doodo anigu intii hore iga ahayd kaliya waxaan sugayaa aan u taaganahay aan u soo saaka u soo kalahay waxa weeye ninka doodiisa inaan dhameeyo oo anaga kala baxo insha Allah intaas uma rajeynay igu dhaqsada mar waa yahay مدن عبد النصير adiga mudana waa maalintii ugu dambeysay kala fadhigeena balse oo galo inuu su'aalo weydiiyo dhibanahan wakiilka wahay nasiir hal su'aal baan ku weydiinaya halkaas su'aal waxay tahay waxa tahay qof dadku yaqaanaan muujista mar walba jirkeeda halka qurux badan leh hadii baraha bulshada tahay maxaa ku kala fiidiyoda inaad duubto wanaag iyo xumaan mid uu sheeg ma ogeyd fiidiyowga duubtay ee timahaagu qaawan yahay jirkaagu qaawan yahay ma ogeyd inuu xaaran yahay in kale ha way beritoole ka maalin haddii aad caruur dhasho caruurtaadu maxay ka odhanayaan sideed u noolaan kartaa yani ama aad u joogi kartaa hadhitoole wax walba mudana waxay ka dayayaan waa caanimo way ogeyd in timaha in la qaawiya qalad tahay way ogeyd jirkeeda in la qaawiya qalad tahay way ogeyd nin bini aadan fiidiyow in loo diraa inay qalad tahay maxaa jarabtaada ugu ciyaaraysa because you are a questionable character mudana qaadi gabadhani waa gabadha dhibta ugu faraha badan la geysatay iyada nafteeda waxaan ku samaysay fiidiyowga iyada gacanteeda ku dhibsay balse hal mid baan ku sheegay mudana qaadi qof kastoo bini aadan uu qaldama ilaahay wuxuu leeyahay mudane qofku haddii uu qaldamo ama uu dhib galo ceebtiisa qofka astura ilaahayna ceebtiisa astura ilaahay ma ogol yahay qofku hadduu qalad galo oo xumaan sameeyo in xumaantiisa la faafiyo dadka loo gudbiyo mudana ma ogolaan lahayd maanta qalad hadduu kaa dhaco sidaa doonta u diro ma qaladka u kasta ma ha u kasin hadhow toola ka maalin qaladkaaga la faafiyo may raalli kama tid waad ku xumaanaysaa adigu og waxaad samaysay inuu qalad yahay waayahay qaadi waxaan ku weydiinaya inantaada hadday kaasoo kale ku dhici lahayd maanta macafin lahayd ninkii dembiga sameeyey inuu koo taagnaado ama maxkamadda soo taagnaado bal waxaan ku hubayna gacan u qaadi lahayd oo diri lahayd looyar hudum waanu sheegaya isaga laftiisa inantiisa maanta taasoo kale inay ku dhacda ma ogolaadeen haddana maanta wuxuu badbaadinaya u doodaya ninkii dembiga sameeyey waayo mudana waxaan kuu sheegaya waxaa jira boqolaal hablood oo fiidiyo caynkan oo kale laga hayo oo qaawanaana oo ragga ka haya habeen walba u yadhaan ka danaystaan mudan
maxay ka baqanayaan fiidowga in la sii daayo maanta si haddii loo xukumo gabadhan oo fiidowgeeda loo xukumo nin gabadh walbay ku dhiiranaysaa ninka habeen dambe inaanay u tegin fiidowgeedana aan laga sii deynin mudan waxaan kaa codsanayaa cadaaladda gabadheeda u baahan inay soo celiso sidaas ay tahay xukunka markaan u eegnay labada dhinac baanu dhageysanay waxaanu ku xukunnay labada inan in inanta magteedii oo konton halaada ay bixiyaan iyaga iyo reerkooda waxa kale oonu ku xukunnay xadhig 3 sannadooda oon iib lahayn waxa kale oonu sheegaynaa ninka inan dambe fiideo ka sameeya in xukunkaasi la mid oo ku dhici doono magteedana looga qaadi doono 3 sano xadhigana uu geli doono kiiskuna sidaas inoogu xidhan yahay وتادي قلافتين قعله قعلوا لبا قردتين ودكيو إلكي قردا ودكيو إلكي